warar soo baxaya oo aan si rasmi ah loo xaqiijinayaa waxa ay sheegayaan in lagu guuleysan kari waayo kulan la doonayay in la isku geeyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Mujaahid Axmed Mire Maxamed. wararkan ayaa waxa ay sheegayaan in Mujaahid Axmed Mire ay u tageen qaar ka mid ah saraakiishii ururkii SNM kuwaas oo ka dalbaday in uu kulan la yeesho madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. waxaana la sheegay in Mujaahid Axmed Mire uu ka cudur daartay in uu la kulmo madaxweyne Biixi. kulankaasi lama oga sababta uu Mujaahid Axmed Mire ku saleeyay in uu ka cudur daarto iyo in uu mar dambe la kulmi doono madaxweynaha. dadaalkan la doonayay in lagu kulansiyo labada mujaahid ayaa la sheegay in uu socday maalmihii uu madaxweyne Biixi la kulmay siyaasi Ismaaciil Hurre Buuba. waxaana la sheegay in madaxweyne Biixi uu doonayay in sidoo kale uu isna la kulmo Mujaahid Axmed Mire isagoo oo ka jawaabaya baaqyo loo soo jeediyay oo nuxurkoodu ahaa in dadka la isku soo dhaweeyo. Mujaahid Axmed Mire ayaa dhawaan dalka ku soo laabtay waxaana uu ka qayb galay shirkii buurta gacan libax ay ku qabsan beeraha Garxaajis.